asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacayga waa ciise shaaciye, asaasaa shaaciye academy. haddaba haddii aad tahay arday jaamacadeed amaba hore uga qalanjabiyey, fariinta tan adiga ayay kugu socotaa. haddaba shaaciye academy wuxuu diyaar u yahay inuu kaa caawiyo sidaad u horumarin lahayd xirfadaha asaasigu ah ka gungaaridda iyo ku guulaysiga shaqooyinka maanta dunida ka jira, gaar ahaan shaqooyinka hay-adaha. haddii aad ahaan lahayd qof fresh oo cusub ee markiisa ugu horeysa shaqo ablaa garanaya, amaba haddii aad tahay qof horuu soo shaqeeye ee doonaya kariirkiisa shaqo inuu hormariyo, waxaynu ku haynaa resourcigii kaa caawin lahaa inaad ka gungaarto shaqada riyadaada. haddaba shaaciye academy wuxuu ku diyaariyey tariino badan oo aad u kala duwan. tariinadaas oo aan ugu magac darnay job readiness skills, xirfadaha diyaargarowga shaqooyinka. waxaana ka mid ugu horeyn inaynu ku bari doonno sida ugu saxan ee looga baaro shaqooyinka websaydyada lagu soo bandhigay UN-ka iska leeyihiin, annagoo ku bari doonno websaydyo hore aadan weliga aadan u arkin ee lagu soo bustigareeyo shaqooyinka. waxaa qodobka labaada inaynu ku bari doonno sida ugu saxan ee layskaga diiwaangeliyo balatfoomada UN-ka, oo haddii balatfoomyadaasi si saxan aadan isku diiwaangelin suuragal maan xataa in CV-gaaga la fiiriyo ama next stagena u gudubta xataa suuragal maaha. haddaba qodobka labaad waa qodob aad iyo aad muhiim u ah. qodobka saddexaad isana wuxuu noqon doonaa inaanu ku bari doono sida loo hagaajiyo CV iyo cover letter aad iyo aad u qurux badan, soona jiita indhaha dadka qiimeynaya CV-gaaga. haddaba CV-gaaga wuxuu 90% qayb ka noqon doonaa inaad u gudubto levelka xiga ama next stagena u gudubto ayuu qayb ka qaadan doonaa. waxaa number 4 inaynu ku bari doonno biidnillaahi essential tips asaasi oo ah in aad ka gudubto testiga ama tijaabada UN-ka ay qaadaan. qaabka ay kaga gudbi lahayd tijaabadaas aynu ku bari doonaa. qodobka 5 sana waxaad ku baran doontaa biidnillahi tacaala tikniigaada adeegsan lahayd si aad kaga gudubto interviewga, oo tijaabadii haddaa ku soo baxday waxaa weeye interviewgaas inaad ka gudubto. waxaanu ku bari doonaa tikniiga ugu habboon ee looga gudbo interviewga, looga gudbo uguna guulaysato biidnillahi tacaala shaqada riyadaada. sidoo kale waxaynu in badan la kulannay dhallinyaro badan oo cabsiweyn ka muujinaya ablaagaraynta shaqooyinka, iyagoo ku andacoonaya waxay ka sfiriinsimaysano saadaris waan ka cabsanayna inuun ablaagarayno. haddaba cabsidaasi maanta ayay ku egtaa insha allahu tacaala, oo waxaan kuu diyaaranay training iyo ay bixiyeen UN-ka bixiyeen, adigoo qaadan doona certificate muujinaya inaad trainingkaasi qaadatay, certificatekaasoo ka imaaday UN-ka ka imaaday, taasoo kuu suura gelin doonta insha allahu tacaala inaad qurxiso CV-gaaga kana duwanaato dadka asla ablagaraynaysa shaqooyinka. waxaana ka mid a trainada kuu diyaarinay nutritionkii baa ka mid a, waxaa kaloo ka mid a disaster management ama maaraynta musiibooyinka ilaah naga haya sida fatahaadaha, abaaraha, daadadka iyo wixii la mid a. training hadduu ahaan la nutrition iyo hadduu ahaan la disaster managementba waxaad ku baran doontaa shaqada maalinlaha ah ee la qabto hay-aduhu ay qabtaan, taasoo kuu suura gelin doonta insha allahu tacaala inaad hesho khibrad kugu filan aad ku qaban doonto insha allahu tacaala shaqooyinkaasi. waxaad disaster management ku baran doontaa sida ugu saxan ee loo maarayo musiibooyinka, halka nutrition aad ku baran doonto sida ugu habboon ee loo maarayo carruurta nafaqadarrada haysata, da'dooduna ay 5 jirka ay ka yaryihiin. ma intaas baa ku egta? jawaabtu waa maya. wuxuuna aaminsannahay fikirka wanaagsan inuu yahay furaha guusha nolosha qaybeeda kala duwan. taasna waa sababta aanu kugu diyaarinay tababar aan ugu talagalnay dhaqamada asaasigu ah ay leeyihiin dadka ugu saamaynta badan dunida maanta. waxaa intaa kuusii dheer inaanu ku bari doonno insha allahu tacaala habka ugu saxan ee loola tacaamulo ama loola sheekaysto AI tools ama artificial intelligence ama af soomaaliga waxaa u yidhahda caqliga macmalka sida ChatGPT, annagoo ku siin doona si firiya 100 prompt oo different category ah, kategoriya badan oo kala duwan, hadday ahaan lahayd dhaqaalihii, caafimaadkii, qaybo badan oo kala duwan, taasoo kaa caawi doonta insha allah inaad barato xirfadatan ay maanta dunidaata u guurayso. dadka bilowga ah iyaguna maynu hilmaamin, oo waxaan u diyaarinay baakij aan ugu talagalnay sida ay awood ugu yeelan lahaayeen isticmaalka platformska online-ka, sida waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka mid yihiin Gmail account inay samaysan karaan, diri karaan fariimaha,
faramaha loo soo diri karana ay arki karaan. intaa waxaa kuu sii dheer inaynu bari doono insha allahu tacaala sida loo isticmaalo Google Meet iyo Zoom oo ah laba aalad oo loo isticmaalo miitinada oo hadhowda insha allahu tacaala interviewga marka aad ku soo baxdo shaqooyinka xataa lagaaga wareysan doono. ugu dambeyn qodobka ugu muhiimsan ee aad ka faa'iidi doonto Shaaciya Academy waxaa weeye inuu diyaariyey community-gaas oo ugu talagalnay dhexdooda inay iscaawiyaan su'aalaha la su'aasha qabaana ay isweydiiyaan. waxaana meesha ka marnayn inay jiri doonaan khubaro kaaga jawaabi doono su'aalaha la su'aasha qabto si waafi ah insha allahu tacaala. haddaba community-ganu wuxuu heegan u yahay ama diyaar u yahay dhexdooda inay iscaawiyaan si midba midka kale uu guul ku gaarane ay ka shaqeeyaan. haddaba nagu soo biir si aad noola guulaysato. ku soo biir Shaaciya Academy oo qaad tilaabadaada ugu horeysa dhanka mustaqbal ifaya la garayso beeshkeenna oo la soco wax walba aan soo dhignay insha allahu tacaala. waxaynu kaa caawin doonaa biidnillaahi inaad xaqiijiso shaqada riyadaada. Shaaciya Academy waa horumariyaha bulshada Soomaaliyeed. ku soo biir Shaaciya Academy oo qaad tilaabadaada ugu horeysa dhanka mustaqbal ifaya la garayso beeshkeenna oo la soco wax walba aan soo dhignay insha allahu tacaala.